wasiirada sharafta leh wasiirka tamarta iyo macdanta dowlad goboleedka Puntland Liban Muuse Boqor wasiirka qorsheynta ee dowlad goboleedka Puntland wasiir Daawud Maxamed Cumar doqo degmada Garowe geedi agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta ee Puntland dhammaan mad sharafta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahad celin kadib waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhammaan akhyaarta ka soo qayb gashay madashan ilaahay nagu kulmiyay waxaan kale u mahad celinayaa bangiga adduunka World Bank oo isagana faankan siiyay mashaariicdan waqti dheer bay qaadatay waxaan u maleyn wasaaraddan 2 sano jooga 2 sano jooga way soo socotay wayna taagneed siyaabo kala duwan baa u taagnaato waxaan aad boqolkiiba u mahad celinayaa wasiir Liban oo shaqo wanaagsan nala qabtay ka wasaaradahan federaalka waxaan u maleyn maanta Puntland wala isweydiinayaa oo agaasimo federaal baa jooga waa su'aal isweydiin doono marka kulli haduu asaga ka shaqeyn lahayn iyo agaasimihiisa halkan baan imaan lahayn wasiirka qorsheynta kulli waxa laga rabaa wasiirada kale federaalka inuu raadiyo asaga u taala shaqada marka waxa way mashruucan waqtiga uu taagnaa iyo waqtiga uu imaaday intaba waa wuxuu Ilaahay qoray Nexom iyo Nebco shaqadan way nagala shaqeeyeen oo mashaariicdan waxay ka socdaan wadanka dhan ka soo bilaaw Hargeysa ilaa iyo Jubbaland oo ugu dambeysay way ka socdaan waxaan u maleyn mashruuca ugu horeeyay la saxiixo oo loo saxiixo isteedada waxa ugu horeeya Puntland ayadana ugu dhibadneed haddana ayada ugu horeyso marka taalaftirkeeda horta waxa la rabaa alxamdulillah inaad dhahdaan inagana laga rabaa waxa kale oo inta weheliso Nebco iyo Nexom shaqadan iskama siinin oo waa qaadateen taga wax la dhahay ma jirto mashruucan waxaan rabnaa inuu yeesho impact oo uu yeesho dadka state-ka degan waxaan u maleyn nimanka la yiraahdo Nexom 10 megawatts baa loo hagaajinayaa oo battery iyo 20 megawatts oo 10 megawatts oo solar iyo 20 megawatts oo battery waxaan u baahanahay marka heshiis baan noo socdaa anagii ayaga taariifka in la raqiisan u baahanahay haddaan taariifka la raqiisanayn mashruuca la dhigahay waxba kama jiraan because Soomaaliya waxa ugu dhib badan waa korontada wadanka warshado kama jiraan nimanka la yiraahdo Nexom waxa u maleyn hadda waxay taagan yihiin 59 if I'm not wrong 59 bay taagan yihiin annagana waxaan rabnaa between 42 to 39 waxaan u baahanaa waa inta ayada inta hadaysa sameyn karin Cabdifataax Hawde lacagtooda soo celin adana laga rabaa inay soo celiso Nebco waxa u maleyn hadda waxay joogan 79 bay taagan yihiin 50 cents baan ka rabnaa iyo wixii la mid iyo wixii ka hooseeya hadday intaa ka badato waa xisaabtan dib ugu noqonaynaa kulli wasiirkii uu joogaa maayarkii degmadan uu joogaa xisaabtan marka ayaga laga rabaa leemanka kulli agaasimaha guuda sheegay oo igu horeeyay 18 kilomitir oo laymana loo sameeynayaa Nebco iyo Nexom labadaba marka dowladda federaalka diyaar bay idin tahay mashaariic ka badan oo ay soo socotaa waxa u maleyn gaalkacyo iyo Garowe iyo Boosaaso iyo Eyl intaas aan ka shaqeynaynaa korontada markay imaato hadee afar degmo ninka looga shaqeynayo iyo Buur Saalaxna ku tar agaasimaha ay sheegay Buur Saalaxna waa ku jirtaa ninka inta looga shaqeynayo wasiir Daawud baa laga rabaa federaalka inuu yeero markay imaado u dhaho asaga shaqada u taala kulli wasaaradda qorsheynta ayada mas'uulka wixii qorsheen waxaan u baahanahay mashruucankii ugu dambeeyay ma aha Boosaaso mashruuc baa asagana socdo waa African Development Bank kulli agaasimaha faafahintiisa muusa bixinin asagana waa taagay waxaan u maleyn Soomaaliya isteedada laga shaqeyn doono dhuusan reeb baan noogu xigto gaalkacyo noogu xigta ayadana oo galmudug baydhabo baraaw ayadana isteed walba marka laba degmo يا لو شقينا هيا كورنتو لو شقينا هيا
كباسياشة وكلويه لكن واحد إيم كان رادين إنه حاول كورنتا رقيس إنه نقطه كورنتا هذا الرقيس إنه قولين العقد ماشي اللي قلنا هاي وحبك مجران حساب تنقل الدقمويك على الربع إن اللي حساب تمام عبد الفتاح وحوملين قموصة درين سبيش كيسي وزارة الفدرال هو ما سنت ليبان بوب هذا عليه قلي ما وزارة ده هم بعمل الله ذاتري ليبان أنا أوكي أنا مشاريع ذا أسأل مركو على الربع إن أنا نقول رجيس هذا وزارة الفدرال هو ما سنت مرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتي دفنتين أنت عدمر وقفتن السلام عليكم ورحمة الله كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وقعد يجمل كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقى صادر ميل والبا كما عملوا أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دقمانته أو كم مرة يكون هرمري نلاش هذا القالة بريمير ولد